dhalinyaradu waa mustaqbalkeeni marka waa in iyaga la kubciyaa oo fikradooda la qaataa ku dadaala horta inaad af Soomaaliya ku hadashaan oo af Soomaali wax ku soo qortaan af Soomaali waa muhiim maxaa yeelay waa garan karaa dad fara badan oo ku kora qurbaha ayaa jira oo aan nasiib u helin in iskool Soomaali ku dhigtaan aniga markii Soomaali aan joogay iskool waxaan soo dhigtay ilaa iyo dugsi sare ayaan gaaray marka af Soomaaliga waa fiican yahay waan ku dadaalaa mar walba in af Soomaali ku hadlo laakiin waa garan karaa qof Jarmalka joogay ilaa iyo caruurnimadiisii way ku adkaanaysaa in af Soomaali ku hadlo laakiin ku dadaala in af Soomaaliga barataan dhalinyarada Soomaaliyeed midda ugu dambaysan aan rabo inaan idin sheego dhalinyarada Soomaalida waxa weeye ka qayb qaata siyaasadda wadankiina ka qayb qaata haddii aad mar walba ku fikiraysid dhalinyaro ahay Soomaaliya shaqo igama gelin wadanka aan joogaan ku dhashay ama aan ku barbaaray marka Soomaaliya waxa iga jira waxaan ku sheegay adduunka meel kasta aad joogtid weliga waxa tahay Soomaalinimaduna waa wax Ilaahay uu ka dhigay waxa ka carri kartid maaha marka muhiimadu waxa weeye in aad la socotid siyaasadda wadankii yani kamid ahayd oo Soomaaliya siyaasaddeena way isbedelaysaa waa ina la socotaa waa ina ogtahay waa ina ka qayb qaadataa sababaha aan rabo inaan tan idinku xasuusin waxa weeye odayaasha Soomaalida waxay sameeyeen dad isu xanaaqsanaa ayaa dagaalkii 91 bilaabay oo ciil isu qabay maysan ka fikirin dagaalkani bilowdeen muxuu ku dhamaan doonaa xagee ayuu ku dhamaan doonaa hadda iyagii way duqoobeen kulligood nin walba maalinta ka dambayso nin baa soo qaxay kulligood qurbahay joogan labadii nin oo isdagaalay labadoodiiba qurbahay joogan cayr bay ku qaataan haddii aad maanta wareystid anigu waa la hadlay odayaal Soomaalida far badan kulligood way jeclaan lahayn maalintii dagaalku u dhacay in dagaalku u soo dhixin laakiin de Ilaahay baa keenay dhibtan timid Soomaa laakiin muhiimadu waxa weeye annagii way dadka mustaqbalkooda u baabacay odayaashan kulligood high school iyo college bay soo dhameysteen adduunyada xilligoodii ugu fiicnaa way soo mareen dabadeedna dagaalkii ayaa dhacay Soomaa annaga haddaan dhalinyaro waxa weeye dagaalkii baanu ku qaan gaarnay ninkii dagaalkii markuu bilaabay dhashay wuu guursaday caruur baa hadda uur baa loo leeyahay laga yaabaa marka mustaqbalkeena dhabaa naga burburay laakiin waa in aanu dib u soo dhisanaa waa in haddaanu nahay dhalinyaro Soomaaliyeed aynu wadankeena dib ula soo noqonaa waa inuu wadankeena dib u soo ceshanaa boqolaal waxyaalood oo la sameyn kara ayaa jira laakiin mid ugu horeysa waxa weeye haddii aad rabtid wadankaaga inaad u doodid ama aad ka hadashid waa in luqadiisa horta si fiican u taqaanaa waa in aad taariikhdiisa si fiican u taqaanaa waa in niyadaada ay ku jirto 100% Soomaalinimo oo aan ku fikirin qabiilkaaga wax u tar runba ku sheegaya qabiil cid wax u taray mala waxa laga yaabaa odayaashu in intay gurigaaga ku yimaadaan ama meel ku leexinayra wareede adeero ninkan aan la socotid ma taqaana waa reer lisanaysan waxa weeye isweydii qabiilkaaga muxuu ku taray weligaa ay allaha insurance ma ka bixi weligaa ay allaha cable-ka ka bixi ama cell phone-kaaga ama qofka walaalkaaga oo qabiil kale waa Soomaali walaalkaaga qabiilku waxba tarmay marka aan soo gabagabeeyo wax badan baa hadlay umaleynaya wadankiina dib u soo ceshta niyadu ku haya ka hadla siyaasadda la socda isku daya inaad ka mid noqotaan siyaasiyiinta iyo dadka raba inay Soomaali wax ka bedelaan dhaqdhaqaaqa badiya cagta bilaaba sidaas ayaa loo gaari karaa nabad waarta waana mahadsantiin dhammaan reer Facebook iyo waliba Soomaalida videogan waqtiga u helay inay daawadaan waqtigii ay siiseenna waa ku mahadsantiin waa inoo mar kale iyo video kale aan idin soo duuban Ilaahay diiraado waa mahadsantiin